bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada barnaamijka wararka maanta oo aan kugu soo gudbin doono wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan qodobadan kugu hayna maanta barnaamijkana oo waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidamada Israa'iil oo dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray qarax ka dhacay koonfurta wadanka Lubnaan. xoutiyiinta Yemen oo sheegay in ciidankoodu ay beegsadeen markab shidaal oo Sacuudiga laga leeyahay oo mareeyay waqooyiga badda cas. Trump uu ku andacooday in Mareykanka Hormuus uu furmi doono maanta ama bari oo Khamiis ah. Inkastoo hadalladan ay ka soo yeerayaan Trump, haddana mas'uul sare oo ka tirsan dowladda waddanka Iiraan ayaa si cad u sheegaya in walow wada hadallo ay u socdaan dalkiisa iyo Cumaan, haddana Mareykanku in uusan furmi doonin ilaa iyo inta ay socoto hanjabaadda Trump. Ku dhawaad 60 qof oo dhimasho dhaawac ka soo gaartay duqeyn ba'an oo Ruushka uu ku qaaday magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine. Qaramada Midoobana waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay kororka dilalka Iiraan ay fulinayso ee lagu fulinayo dadka loo haysto dambiyada kala duwan. Dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta. Aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tihiin barahayna bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xidhiidhina nagu soo biira. Waad ku mahadsan tihiin daawashada iyo la socodka barnaamijka. Mawlid Xaaji Cabdi oo barnaamijka ila daadihinaya ayaa inoogu bilaabaya wararka caalamka kuwooda ugu dambeeyay. Mawlid. mahadsanid Nimca. Maanta waxaynu ku bilaabaynaa wararka la xiriira dagaalada Ukraine iyo Ruushka. Saacadihii la soo dhaafay ayaa lagu soo waramayaa Ruushku duqeymo culus in uu ku qaaday magaalada Ukraine caasimadda u ah ee Kiev. Ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay halka 44 kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar culus oo Ruushku uu ku qaaday saacadihii la soo dhaafay caasimadda Ukraine ee Kiev iyo deegaanada ku hareeraysan. weeraradaasi ayaa loo adeegsaday gantaalo nooca balastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. Hay'adda gurmadka degdega ah ee Ukraine ayaa sheegtay in howlaha gurmadka iyo nadiifintu ay weli socdaan kadib weerar ay ku tilmaamtay mid aad u baaxad weyn. Goobaha la beegsaday waxaa ka mid ahaa baqaaro ganacsi oo ku yaala Brofiri iyo Bucha, halkaasi oo dab xooggan uu ka kacay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Ruushku weerarka ku isticmaalay 24 gantaal oo kuwa balastiga ah, 4 gantaal oo nooca cruise-ka ah iyo 115 diyaaradood oo kuwa droniska ah ismiidaamiya ah. Waxaana uu xusay in khasaaraha naf iyo maal kaleba uu si toos ah ula xiriiray yaraanta gantaalada lagu soo rido gantaalada balastiga ah ee weerarada Ruushka uu ka soo qaaday. Zelensky ayaa sheegay in bartilmaameedyada ugu waaweyn ay ahaayeen baqaaro ganacsi, xarumaha saadka, saldhigyo tareen iyo kaabayaal kale oo kuwa rayidka ah, isagoo carabka ku adkeeyay in goobahaasi aysan wax xiriir ah la lahayn howlaha military ee Ukraine. La taliye sare oo ka tirsan madaxtooyada Ukraine ayaa ku eedeeyay Ruushka in uu si olakac ah u beegsanayo kaabayaasha rayidka, isagoo sheegay in weeraradu ay saameeyeen baqaaro cunto, xarumo ganacsi iyo shirkado kala duwan. dhinaca kale warar ay baahisay warbaahinta caalamiga ah ayaa waxay sheegaysaa in Mareykanka iyo Ukraine ay wada hadal ka leeyihiin sidii dib loogu buuxin lahaa kaydka gantaalada nooca Patriot ee difaac, iyadoo la tixgelinayo in qayb ka mid ah gantaaladaasi lagu soo saaro gudaha Ukraine kadibna rakibaadda loo geeyo waddankaasi Jarmalka. war kale oo la xiriira colaadan Ukraine ayaa weerar dronis ah waxa ay ku qaaday gudaha wadanka Ruushka kuwaasi oo lagu beegsaday xarumo saad, baqaaro iyo warshada sifaynta shidaalka.
wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka ruushka ayaa sheegtay in habeenkaasi la soo riday boqolaal drones ah oo Ukraine ay isku soo weerartay ruushka ama laga soo diray. Zelensky ayaa ugu baaqay dalalka kooxda G7 la isku yiraahdo iyo midowga Yurub inay labaduba xoojiyaan naqabateynta lagu hayo ruushka, gaar ahaan kuwa ku lugta leh ama shirkadaha ku lugta leh dagaalka kuwa la xiriira ee soo saara gantaalada balastiga haddii aysan awoodin in Ukraine ay siiyaan gantaalada difaaca hawada ee lagu soo rido gantaalada kale ee ruushka uu ku soo weeraro. وهجاج balmarkana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay iyo xaaladaha colaadeed ee gobolka bariga dhexe. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in marinka Hormuz laga yaabo in uu furmo Arbacada maanta ama maalinta berri oo Khamiis ah. Trump ayaa sheegay in Washington ay wadahadalo aad u wanaagsan la leedahay Iran, isagoo xusay in Tehran ay doonayso inay gaarto heshiis isla markaasna aysan doonayn in lagu qaado duqeymo Mareykanku uu fuliyo. waxaa sidoo kale uu muujiyey rajadiisa ah inuusan Iran ku qaadi doonin weerar culus. laakiin warkaasi war ka duwan ayaa xagga Iran ka soo baxay. xildhibaan Ismaaciil Kawsari oo ka tirsan guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka Iran ayaa ku tilmaamay habka Trump ee wadahadalada Iran mid isburinaya oo aan lagu kalsoonaan karin. Ismaaciil Kawsari ayaa waxa uu sheegay telefishinka dowladda Iran ee IRIB in Trump uu 75 jeer sheegay in marinka Hormuz uu furan yahay, inkastoo xaqiiqadu sidaasi ahayn. Kawsari ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Trump uu 106 jeer ka hadlay guuldarrada Iran, halka uu 88 jeerna ku celiyay in heshiis dhow lala gaari doono Tehran. Trump ayaa 2 maalmood ka hor waxa uu sheegay in heshiis lala gaaray Iran uu yahay mid dhici kara saacado gudahooda, balse Tehran ayaa marar badan waxa ay beenisay inay wadahadalo toos ah la leedahay Washington. aynu ku sii soconnay wararka Iran ee telefishinka dowladda Iran ayaa ka soo xigtay ilo xogogaal ah oo sheegaya in heshiis kasta oo suurtagal ah oo Iran iyo Oman ay gaaraan arrinta marinka Hormuz uusan wax xiriir ah la lahayn furitaan degdeg ah oo la furo marinkaasi. ila wareedka ayaa sheegay in wadahadalada ku saabsan marinka Hormuz ay yihiin kuwa u dhaxeeya Iran iyo Oman oo kaliya, isla markaasna Mareykanku wax door ah uusan ku lahayn. warka ayaa intaasi ku daraya in marinka Hormuz aanu furmi doonin xitaa haddii heshiis lala gaaro Oman, haddii Mareykanku uu sii wado waxa Iran ay ku tilmaamtay xadgudubyadiisa. sidoo kale ila wareedka waxa ay sheegeen in furitaanka marinka Hormuz uu ku xiran yahay in Washington ay bedesho habdhaqankeeda isla markaasna ay saxdo xadgudubyada lagu eedeeyay. waa tahay aynu colaada ee Sacuudiga iyo sidoo kale xoutiyiinta dhankeeda wararkii ugu dambeeyay ku saabsan eegno. afhayeenka militariga dhaqdhaqaaqa Ansaar Allah ee loo yaqaano xoutiyiinta Generaal Yahya Sariic ayaa sheegay in ciidankoodu ay bartilmaameedsadeen markab shidaal oo Sacuudigu leeyahay, kaasi oo marayay waqooyiga Badda Cas meel u dhow deegaanka Yunba, iyagoo ku weeraray tiro gantaalo ah oo nuucoodu yahay kuwa balastiga. Yahya Sariic ayaa sheegay in tirada maraakiibta ay kooxdiisu bartilmaameysatay tan iyo markii ay ku dhawaaqday cunaqabateynta badda ee ka dhanka ah Sacuudiga 22kii bishiina weydaaratay ee Julaay ay gaartay 8 markab oo kuwa shidaalka oo Sacuudigu leeyahay, isla markaana ay ka hor istaageen 29 markab oo kale in Sacuudiga ay tagaan sida uu shaaciyay maanta. xagga Israa'iil haddii aynu eegno, warbaahinta Israa'iil ayaa tabinaysa in ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay aagga Mashdal Zone ee koonfurta Lebanon. askartan ayaa la sheegayaa in diyaarada helikobtera intii dhaawac ahayd loogu qaaday cisbitaallo si loogu daaweeyo. ilaa hadda militariga Israa'iil war rasmi ah kama soo saarin arrintan. weerarkan ayaa imaanaya iyadoo weli ay socdaan howlgallada ciidamada Israa'iil ay ka wadaan koonfurta waddanka Lebanon, halkaasi oo xiisada kala dhaxaysa dagaalamayaasha Xisbullah weli ay sii socoto. waa hagaag, bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira barnaamijka wararka maanta.
qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay korarka dilalka toogashada ah ee laga fulinayay Iiraan tan iyo bishii Maarso ee sanadkan. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in ugu yaraan 56 qof lagu dilay eedeymo la xiriira amniga qaranka tan iyo markii 19 bishii Maarso laga soo bilaabo, kuwaas oo 27 ka mid ah la xiriirnayay dibadbaxyadii bilowgii sanadkan ka dhacay Iiraan. Turk ayaa sheegay in ciqaabta dilka loo adeegsanayo cabsigelinta shacabka iyo aamusinta mucaaradka sida uu hadalka u dhigay. dowladda Iiraan ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in kumanaan qof ay dishay intii lagu jiray dibadbaxyadii dowladda looga soo horjeeday ee bishii Janaayo ee sanadkan. dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo weli u ka sii socda cudurka Ebola ayaa wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo maanta gaaray waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo hay'adaha gargaarku ay sheegayaan in cudurka Ebola uu ku sii fidayo gobollo kala duwan weliba si xawaaro sare leh, iyadoo walaacuna uu kordhayo. Tedros ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne Felix Tshisekedi iyo hay'adaha iskaashiga la leh WHO. waa booqashadiisii labaad tani markii cudurkan lagu dhawaaqay in uu ka dilaacay waddankaasi bartamihii bishii May ee aynu ka soo gudubnay. wasaaradda caafimaadka ee Congo ayaa waxay sheegaysaa in ilaa iyo Isniintii la diiwaan geliyay 3874 kiis oo la xaqiijiyay, waxaana la sheegayaa in cudurka ay u dhinteen 1751 qof, waxaana sidoo kale jira shaqaale caafimaad oo shaqo joojin u sameeyay sababo la xiriira xagga mushaaraadka. waa hagaag wararkaasna intaa aynu kaga gudubno aynu ku laabanno haatan warka dhanka Israa'iil la xiriira askarta dhimashada dhaawac oo ka soo gaaray waddankaasi Lubnaan xaggiisa koonfureed. wararka ayaa waxay sheegayaan in askartan miina ay kula qaraxday deegaanka Majdal Zone. war laga soo saaray dhanka militariga Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa in lagu eedeynayo ururka Xisbullah waa si hadalka loo yiri in uu ku xadgudbay xabad joojinta, waxaana ciidanka Israa'iil ay sheegeen inay si adag u bixin doonaan jawaab arrintan la xiriirta. ilaa iyo hadda lama oga tirada askarta dhaawacantay marka laga reebo in la sheegayo in askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacaba ay ku jiraan saraakiil, waxaana la sheegayaa cisbitaalka Rambab in loo soo qaaday askarta dhaawaca. wixii warah ee arrimahan ay ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. waa hagaag daawadayaal, goordhow waxaan u gudbaynaa falanqeyn ku aadan xaaladaha colaadeed ee Iiraan iyo Mareykanka u dhexeeya iyo guud ahaanba bariga dhexe. marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin.